meesha aad nagala socotaan waa kanaalka Iglon Kidmed. warbaahin ka soo baxday hay'adda xuquuqda aadanaha ee u qaabilsan qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in ciidamo ka socdo Soomaaliya oo tababar ku qaadanayay saldhigga militariga ee ku yaalo Eritrea in ay ka qayb qaateen dagaalkii ka dhacay gobolka Tigray ee waqooyi Itoobiya. qaramada midoobay waxay sheegtay in ay soo gaareen warar sheegayo in ciidamada Soomaaliya lagu arkay magaalada qadiimiga ee Aksum ee Tigray iyagoo ka barbar dagaalamayo ciidamada Eritrea. waxaan helnay macluumaad iyo warar ku saabsan in ciidamada Soomaaliya lagu soo daabulay saldhigga militariga oo ay tababar ku qaateen oo ku yaala Eritrea si ay ugu biiraan dagaalka Tigray waxaana la socday ciidamo Eritrea. intaas ku dartay waxaa lagu soo waramayaa in ciidamo Soomaaliya lagu arkay magaalada Aksum. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa horay u beenisay warar la isla dhex maray oo ku saabsan in ciidamo Soomaaliya oo tababar u jooga Eritrea ay ka qayb qaateen dagaalkii dhawaan ka dhacay gobolka Tigray ee waqooyi Itoobiya. warbaahinta qaramada midoobay waxaa sidoo kale ku xusan in ay heleen warar ku aadan in xafiiska arrimaha dibadda iyo guddiga gaashaandhigga ee baarlamaanka Soomaaliya ay ugu baaqeen madaxweynaha in uu xaqiiqo loo diro Eritrea si loo baaro in ciidamo Soomaaliya ay ka dagaalameen gobolka Tigray. qaramada midoobay waxaa lagu wargeliyay in xafiiska arrimaha dibadda iyo guddiga baarlamaanka u qaabilsan arrimaha gaashaandhigga in madaxweynaha ay ugu baaqeen in guddiga xaqiiqo raadin ah loo diro Asmara si ay baaritaan ay ugu sameeyaan arrinta ayaa lagu yiri warbaahinta. waxaa caddaatay in ciidankaas ay qayb ka ahaayeen dagaalkii Tigray. warbaahintan waxaan ka soo xigtay BBC.